sheekada filimka waxay ku bilaabanaysaa gabadhan la yiraahdo Sola oo la hadlaysa saaxiibkeed Leena wuxuu gacanta ku hayaa bisad yar. Solana bisadaha ma jeclo, laakiin Lee allergic ayuu ku yahay oo ma haysan kariyo. Sidaa darteed Sola waxay ku qasbanaatay inay mukulash ka soo qaado bisad ka soo qaado gurigeeda ay keenaysaa. Kadibna dharkeeda ay dhiganaysaa meesha si musqusho u gasho oo soo qubaysato. Markaan waxaan arkaynaa 15 saacadood ka hor Sola oo hurdada ka soo kacaysa saaxiibkeeda manay wuxuu u sheegayaa Lee inuu yimid oo gabadha saaxiib ahayn oo ka soo kala tageen. Sola arinta aad ugu faraxsan ayaa isdiyaarinayso. Solana xafiiskeeda ay soo aadaysaa iyadoo faraxsan wax walba inay nolosha u fiican u malayso. Leena xafiiska agteeda ayuu ku kulmayaa Sola laakiin iyadoo waxba dhahnay ka tagaysaa. waxayna soo xasuusanaysaa hadda kore inuu shumiyay kadibna uu dib u soo wacin. Fiidkii Sola waxay imaanaysaa kafeega Lee. Saaxiibtiisa Solayana iyadna imaanayso iyadoo bisadiisa soo celinayso. Maadaama Lee uu allergic ku yahay Sola ayaa soo qaadanayso. Halkan ay marayso Sola qubaysanayso. Bisadeen nin ay isku bedeshay markaan binaadan. asigoo albaab ku furay bax isdhahay markay qubaysto soo laabo. Sola ayaa soo baayay kadibna bisad ayuu isku bedelayaa. Markay saaxad sariirta ayuu soo koraya kadibna Sola way ka tuuraysaa. laakiin uu ku sii madhadeega ilaa uu ka jiifto sariirta geeskeeda. haddana cabaar ka bacdi nin ayuu isku bedelayaa wuxuuna isku dayaa banaanka inuu aado. banaanka markuu tagana wuu cabsanaya isla markiina wuu soo laabanayaa. Solana markaan xafiiskeeda ay iska aadaysaa asigana wuxuu isku bedelayaa bini'aadamkiisa. wuxuuna sameynaya waxyaabo dadka sameeyaan. kadib wuxuu arkayaa Sola abeed oo suuxsan. kadibna wuu soo xambaarayaa banaanka ayuu soo qaadayaa. wardiyii banaanka ayaan arkayo. kadibna inta uu dhigo ayuu bisad isku bedelayaa. Solana waa la soo wacayaa waxaa leeyahay isbitaalka ayuu aabahayaa isbitaalka iyo soo aadaysaa si abeed uu aragto. isbitaalka markay timaado abeed saaxiibtiis oo asiga ka taxadiraysa ay arkaysaa iyadoo xanaaqsan inay ka tagaysaa meesha. dhanka kale miyaa uma karanayn guriga adreeskiisa marka sidaa darteed banaanka ayuu iska joogay. Sola oo soo socota markuu arkana binaadan ayuu isku bedelayaa kadibna wuu daba raacayaa. Solana kursi darjiga ayay fadhiisanaysaa kadibna gadaasheeda ayuu isna fadhiisanayaa isla sidii Lee uu fadhiisan jiray. Solana iyadoo Lee u malaysa ayay wax walba u sheegaysaa oo waxay leedahay aad baan uga xumaaday inaan aabay ku arko naagtaas u saaxiibada yihiin. hooyadana way ugu sheekaynaysaa. kadibna iyadoo Lee u sii malaysa ayay waxay leedahay waana meesha isaga tagtaa. isla markaasna Lee ayaa taleefka soo wacayo. gadaasheeda haday fiirsana miyaa bisadeed ayaa fadhido. kadibna Lee ayay ku weydiinaysaa inuu u yimid. asigana wuxuu leeyahay ilaa hadda guriga ma ka soo bixin oo meel ma aadin maanta. Solana way ka naxaysaa oo maanta dham yaa la hadlaysa ayay isleedahay oo sheekada ugu sheekaynaysay. kadibna Lee ayaa weydiinaya miyaa xaaladeeda ka waran. aad ayana u xanaaqaysaa oo waxay ku leedahay qof kale ma siis bisadaan xumo anagana u daalinayso. Leena eraya ku yaabto ayuu leeyahay wuxuu leeyahay mar dambe ha ka tagin miyaa oo sida mar hore ugu tagtaa dadka hor. Sola ma fahansan wuxuu ka hadlayo kormay waxaan dhaanay isleedahay. waxaan arkaynaa miyaa oo yariis ah oo Sola u maanayso. cunno ayayna siinaysaa kadibna lookarka ayay wax ka doonanaysaa qaanada. intay ku maqneedna miyaa uu cararayaa kadibna bisad ayuu isku bedelayaa. haddana waxaan arkaynaa iyaga guriga isla joogo. Sola inay saaxad ay doonaysaa miyaa uu soo daba kacaya sarta ayuu soo korayaa kadibna iska tuuraysaa laakiin wuu ku soo noqonayaa. kadib markay jiifato binaadan isku bedelaya uuna fiirinayaa wuxuuna ka fikirayaa Sola kaliya markuu la joogo ayuu binaadan isku bedelayaa marka kalena bisad ayuu isku bedelayaa. waxaan halkan ka ogaanaa Sola abeed inuu gurigiis iibiyay si uu guursado. Solana aad ugu xanaaqday laakiin naagta ideedeeda uu guursanaya naag aad u fiican ahayd waxayna siinaysaa guriga wiilkeeda furihiisa. Sola guriga markii soo aadana waxay arkaysaa inuu kafeega Lee ka soo horjeedo guriga. mana doonayn Lee ay u sheegtay inay guriga ka soo horjeedo ay degan tahay. kadibna way ka dhumanaysaa gurigeeda ay u laabanaysaa. Sola iyadoo xafiiska aadaysa ayay hilmaamaysaa taleefankeeda kadibna way soo laabanaysaa. guriga markay u soo laabataan haddana waxay ku hilmaamaysaa bisadii wax rishka siinaysa ay ku hilmaamaysa. wayna ka tagaysaa mar labaad. miyaanu binaadan ayuu isku bedelayaa markaan wuuna daba kacayaa si iyadoo fahansan ayuu taleefanka borsada u gelinayaa. isla markii dhaqaajisana bisad ayuu isku bedelayaa. guriga uu soo cararaya guriga markuu umaadan isla guriga markuu soo galno binaadan ayuu isku bedelayaa. waxaana fahmi weeyaa sababtoo guriga markuu soo galo uu bisad isku bedelayay Solana oo joogin. Solana shaqada ay ku daahaysaa habeenkii oo dhan. markay shaqada dhamaysana roob ayaa bilaabanayo. halka miyaa uu sugayay Sola dalada ayuu banaanka u soo qaadanayaa si uu iyada u sii hayo. laakiin dabeel ayaa imaanaysa oo dalada ka bitanayso kadibna bisad ayuu isku bedelayaa dalada markay beddo. dalada xaggeeda ayuu aadaya markuu u dhawaadana binaadan ayuu isku bedelayaa. dhowr mar ayuuna tan tijaabinayaa 3 mar camal. halkan wuxuu wax qasanayaa Sola markuu u dhawiyaa amba alaabteeda uu haysto inuu binaadan isku bedelay karo. markan wuxuu soo aadayaa Lee keeda Sola xaggeeda si uu umbrella u siiyo. laakiin Lee ayaa la socday. Lee wuxuu leeyahay guriga ayaan ku keenayaa laakiin Sola way ka diidaysaa inay ciwaankiisa ogaato ma doonayso. laakiin markuu dhowr mar weydiiyo waxay ku qasbanaysaa markii dambe inay siiso ciwaankeeda. kadibna halkan ayuu ka taabanayaa si uu u fiiriyo hergebka hayeeda. miyaa aad ayuu xumaanayaa. guriga markay timaadana miyaa ay hanjo u bixinaysaa. shaqadeeda markay dhammaysatay ee rabto inay jiifato isku diyaariso
miyaa xaaladiisa ay jeekareynaysaa kadibna waxay halkaa ka ogaanaysaa inuu aad u xanuunsan yahay way la soo cararaysaa isbitaal ayay u soo cararaysaa kadibna guriga ayay u soo naqaysaa wayna ka taxadiraysaa markii hurdana asiga ayaa ka taxadiraya isagoo binaad isku bedelay maxaa yeelay Soolaa hergam xun ayaa hayay aad u qananeed Soolaa markaan guriga ayay u soo laabanaysaa kadibna waxay arkaysaa Hanju oo kor saaran wayna ka naxaysaa waxay isleedahay ama wax gaaran idoon ka naxsan ayaa waxay soo bilaabaysaa jarjar inay soo qaadato soo korto meesha laga Hanju bisad waa isla markii uu soo deganaya Hanju markii aragtay inuu dhulka joogo kadibna waxay soo bilaabaysaa inay soo degato kadibna lugta ay u seexanaysaa wayna soo dhacaysaa Hanju ayaa ibraad isku bedelay isla markiina qabanayo ninkii ay u mahadcelinaysaa maadaama uu qabtay bisadeeda Hanju ayana meelaha ka raadinaysaa kadibna laakiin markay soo jeesato miyaa meesha ma joogto wiilkina meesha ma joogo waxay markay meelaha ay eegtana waxay arkaysaa miyaa oo si cararayso kadibna guriga ay soo laabanaysaa maalinta xigtay Soolaa markay xafiiska aaday Hanju aad u adkaatay miyaa inuu guriga sii joogo kadibna teeth brushka oo Soolaa ayuu qaadanayaa uuna raacayaa Soolaa markay aragto mar labaad ay u mahadcelinaysaa kadibna cunto ay meesha ka qeydata ay siinaysaa kadibna baska ay raacaysaa si ay meesha shaqada u aado ay ka shaqeynaysay Hanjuna wala soo koraya gadaasheeda ayuu fariisanayaa laakiin wax lacag oo bas ku raacmo oo haysan Soolaa ayuu u sheegayaa kadibna iyada ay leys oo ka bixinaysaa kadibna Hanju wuxuu bilaabayaa Soolaa bombelo barsadeeda ku dhigan inuu ka ciyaaro Soolaana way la yaabaysaa waxaan cunnikan carcarurta muxuu yahay isleedahay ayada xafiiskeeda ay aadaysaa kadibna asigna guriga ayuu soo aadaya oo soo lugayna maadaama uu lacag haysanin guriga markuu maadana asigoo daalnay u saxanaya Soolaa guriga markay timaad caadaysa isleedahay kadibna brushkeeda ay weynaysaa waxa kale guriga ku arkaysaa bombelada ay baski wiilkii ku siisay guriga dhexdiisa markaas intay cabsatay u cararaysaa liya inay guriga soo raacayo guriga ayuuna eegaya kadibna wax walba inay caadi yihiin ayuu arkayaa brushka Soolaana Hanju agtiisa ayuu yeelay bisadii u baxsay miyaa Hanju liina bisada agteeda markuu istaagay isla markiina nis ayuu bilaabay kadibna Soolaa ayaa banaanka geynaysa bisadii Soolaa ayaa isku dayay inay damaan shumiyaan kadibna Hanju ayaa binaadin isku bedelayo guriga ayuuna soo galaya kadibna ayuu leeyahay guriga ka bax waxay naaqsan ayaa dhahay guriga markaa ay burnaysa yaa taadiga isla waqtigaas Soolaa eedadeeda ay soo wacayso waxaana leedahay wiilkayga ayaa soo laabtay Soolaana isla markaas waxay u malaynaysaa wiilkan inay eedadeed dhasho oo Hanju wiilka eedadeed uu yahay liina maadaama uu arinta ay soo noqotay wax ka baxaya maalinta xigta Soolaa dukaanka aadayso Hanju ayaa dukaanka u raacayo markuu malaay arkana weeli ayuu ku noqonayaa dhamaantood inuu soo wada baxshay ayuu doonayaa laakiin lacag bixinta markii la gaaro lacag ma hayaa bisadu waa hajirabay Soolaa ayaana ka bixinayso kadibna Soolaa ay guriga soo raacayaan Soolaana waxay ku weydiinaysaa sababta uu maalintaas u soo laabatiiday waxay ka hadlaysaa maalinta oo lii shuminayay liina wuxuu ballan qaaday inuu habeenkii la kulmaayo liina wax jawaab kama bixinayo arintaas kadibna Soolaa ayaa dhayso markaan saaxiibo ma noqon karna miyaa liina wali buu soo fiirinayaa marka jawaabayo Soolaana sababtay guriga lii u timidna waxa way inay jawaab ugu hesho arrimahan madaxeeda ku dhex jira su'aalahan waxaan arkaynaa maalintaas lii oo doonayo inuu Soolaa la kulmo laakiin dhaxayo ku arkaya miyaa uu iskaarf xiran isla maradii Soolaa ay ku xirtay warqad ayaana agtiisa tiilo oo ku qorneed qof taqay doonayo uu qaadan karaa kadibna lii aad ayuu ugu xumaanayaa maadaama agoon uu ahay wuxuuna is leeyahay gabadhii mukile bisadeeda sidaan ugu tagtay adina way ka tagaysaa akharkii taas darteed ayuuna u go'aansanayaa inuu Soolaa mar dambe la kulmin uu ugu tagayaa markaas ilaa waqti xaadirkan lii kuma ma aaminsana Soolaa oo fikradii ay madaxiisa ka dhex guuxayso Soolaa maadaama lii uu jawaab diiday waxay ku leedahay mar dambe kuma soo daba raacay oo ka harayaa kadibna way ooynaysaa ku soo tagaysaa markaasna Hanju binaadin isku soo bedelaya oo maanaya kadibna raali gelinayo Hanju markaan si uu lacag u helo wuxuu bilaabayaa maqaayad inuu ka shaqeeyo Soolaana markaan shukaansi waqti nasiib ay aadaysaa Hanju ayaana meesha ku arkaysaa lamadooda meesha ay fiirsanayaan kadibna lamaanaha ay sugayaan laakiin waxay ogaanayaan labadooda inay ahaayeen wax la isku ballamiyay suuqa ayaan isku raacayaan Soolaana Hanju dartiis ay bombelayoon badan ku guuleysanaysaa taasoo aad ugu farxaysa ciyaaraha dhashay guriga markay soo laabtaan lii guriga joogay arkayaan liina wuxuu arkaan ka xaqsanaya labadooda inay shukaansi isla aadeen liina Soolaa ayuu ku leeyahay miyaa qof kale u dhiib oo iska dhaqaajima doonin walba Hanjuna aad uu xumaanaya maxaa yeelay binaadin inuu iska ahaado doonay gabanan la joogo Hanjuna Soolaa ayuu weydiinaya alaabaheeda wax kamid ah si uu binaadin ugu sii ahaado oo haysto laakiin wuxuu doonayaa xal oo binaadinimo tusuu ahaado way ma doonin inuu shay maanta iska wato lii ayaana ku dhahayo qofkii la doonayay mukulash in loo dhiibo qof uur la waay waqti hadarkan kama taxadiri karto dhankan Soolaa aad ayuu xumaatay maadaama ay la qabsatay miyaa in la joogto bisadaan waxayna go'aansanaysaa inay iska haysato markaan laakiin problemka halkaan ayuu ku bilaabanayaa oo wiil eedadeed ayaa soo laabanaya oo saxda ahaa Hanjuna wuxuu sheegayaa Soolaa inuu jecel yahay laakiin Soolaa dhageysanaysa way ka tagaysaa Hanjuna markaan wuxuu dareemayaa inuu qatar ku jiro qof walba ay u malayso eedadeed inay dhashay haddii la ogaado inay joogitaankiisa halis u galayo Hanjuna mar walba wuxuu isku dayaa inuu ku istaago inay aragto wiilkaas oo asigana qolka ku jiro ugu dambeyn markay aragtana waxay isleedahay Hanju saaxiibkiisa waay
Hanjuna maradii Sola ayuu ku arkayaa Lee markuu weydiiyana wuxuu u sheegayaa sababta ay u kala tageen inay sidaa tahay. Kadibna Sola kafeega ay imaanaysaa waxayna arkaysaa maradeedii wayna weydiinaysaa Lee. Leena wuxuu u sheegayaa sababta ay u kala tageen inay sidaa tahay. Solana aad ayay u xumaanaysaa maxaa yeelay waxay leedahay ima aaminaysid miyaa stupid baa tahay. arrimo ay la tashanayaan go'aan iska gaartay leedahay ka soo tagaysa iyadoo xanaaqsan. Leena markaa waxaad dareemaysaa inuu ka shalaysan yahay arrinta uu sameeyay laakiin waxba kama qaban karayo waqtiga xaadirkan. Sola wiilkii eedadeed dhashayna wuxuu la kulmayaa Lee. Leena wuxuu markaas ka ogaanayaa Hanjo inuu ahayn wiilkaas. Markuu arrinta aad ogaadana isla markii guriga ayuu soo aadayaa Lee. Kadibna guriga ayuu amaanayaa Hanjo ayuu leeyahay yaa tahay oo ku ogaaday inaan ahayn wiilka eedadeed. Hanjo oo arkay Sola inay xaaladeeda wanaagsaneen ayaa Lee bixinaya kadibna uu iska baxaya. Lee markuu soo daba kacana miyaa ayuu qolka ku arkaya mana aamini kariyo wuxuu arkay meeshan ku arkay. Kadibna wuxuu iska dhadhacsiinayaa Hanjo inuu dirshada ka booday. Kadibna Lee Hanjo ayuu basad isku bedelaa ayuu wuxuu ku leeyahay Sola asagoo basadiis iska dhigay ayuu wuxuu arkaa Sola alwaax ku soo kordhay rabo kadibna binaadam ayuu isku bedelaya wuxuu isku dhigayaa maadaama markaan indhahooda ku arkeen ay ku xaqsadeen. Lee wuxuu bilaabayaa inuu Hanjo la hadlo. Hanjo runta ayuu sheegayaa si wax u jiraan. Leena wuxuu leeyahay kafeegii ka shaqaysan laga bilaabo dagaal dheer iyo isqabqabsi ay galaan. Sola markaan waxay sugaysaa Hanjo laakiin miyaa isla markii la afduubanaya. Leena markaan wuxuu arkay qoorta geedka uu xirnay Sola inuu sheegayaa Sola iyo labadooda iyo Leena waxay bilaabeen inay raadiyaan. Kadibna waxaa loo sheegayaa nin oo jiro oo bisadaha iska jecel inuu iska afduubto. Kadibna Hanjo ninkii odaya ayuu binaadam isku bedelayaa ninkina uu argagaxayaa. Kadibna wuxuu ku leeyahay bisadahan asoo xariistay kibigood wadaday wana is dagaalayaan. Kadibna isla markii Lee iyo Sola ayaa meesha imaanayo Hanjo bisadiisa ayuu isku sii bedelayaa isla markii. Ninkana wax meesha ka dhacay ayuu leeyahay yaabay. Hanjo iyo Solana markaan waxa dhax ka bilaabanaya isku soo dhawaadaan. Kadibna Sola eedadeeda ayaa soo wacaysa waxayna ku leedahay aad baan ugu faraxsanaa iyo wiilkii aan dhalay inaad guriga isku noolasheen saxaab farxad leh. Waxaan halkaan ka dareemaynaa sababta Sola in Hanjo ugu fogaanaysa inay tahay wiilkan inuu eedadeed dhashay oo malaysay macquulna ay naqaneen inay saaxiib noqdaan. Solana bisadii miyaa waheed ay u tagaysaa kadibna waxay u sheegaysaa haddii Hanjo u ahaalihin wiilka eedadeed inay saaxiib run dareenkeeda u sheegi lahayd. Kadibna Hanjo ayaa Sola u imaanaya wuxuu leeyahay aniga walaalka mii oo eedada ima dhalin isla markaasna uu shumanayaa. Hanjona markaan wuxuu la kulmayaa duq oo bisad ahaa jirta iyadana oo binaadam isku bedeshay waxaan leedahay jacayl ayaan lahaa jiray jacaylkaasna weli ma suurtagelin oo sidan ay kala joognaa. Waxayna ku leedahay bisadaha cimrigooda aad ayuu u yaryahay binaadamkana cimrigooda wuu ka dheeryahay oo waqti inta dhalinyaro ahaanayaan ayaa ka fog intay noolaanayaan bisadaha. Kadibna Hanjo Lee ayuu arrinta u sheegayaa. Leena wuxuu ku leeyahay maadaama amar dhawaa dhimanayso Hanjo waxaas uu sheegin Sola waxaas uu sheegin kana tag. Hanjo ma doonin inuu Sola ka tago laakiin wuu qasbaya markaan wuxuu leeyahay halka maalin ayaan waqti la soo qaadanaya kabacdi waa inaan ka tagaa ayuu leeyahay inuu imaanayaa. Solana hadaladiisa ayay waxay ka dareemaysaa ninkan inuu qorsheynayo inuu baxayo kadibna muruga ay dareemaysaa waxayna u sheekeynaysaa Lee markii ay shuminayeen ay nolol cusub ayaa ku bilaabatay kadibna ay isku dhamaatay arrintaas. Kadibna Sola uu murugsan oo weynaysaa xafiiskeeda iska aadayso. Hanjona Lee ayuu tagayaa wuxuu leeyahay dhowr maalin waa inaan la sii joogaa maxaa yeelay muruga ayaa ka dareemaya gabadha. Sola habeenkii fiidka markii guriga soo laabato waxay arkaysaa Hanjo guriga jooga aad ay ugu farxaysaa kadibna taleefan ayay u iibinaysaa. Dhanka Lee aad ayuu ugu maseeray Hanjo markaana wuxuu go'aansanayaa inuu Sola u tago una sheego aad ay u xanaaqayaa kadibna wuxuu u sheegayaa inuu ka tago. Hanjona wuxuu leeyahay Solana u sheegayo wax sida wax u jiraan. Sola markaas eedadeeda ayaa soo wacaysa kadibna waxay leedahay wiilkii waa soo laabtay wala jooga. Solana way isku naxaysaa markaas kadibna waxay isleedahay see macquul ku tahay maxay anigu hadda ila jooga. kadibna tareenka bixir bay ku ordayaan way raacayaan. Sola iyo Hanjona qorshooda wuxuu ahaa Sola waalidiinteeda aabbaheed iyo hooyada inay la kulmaan isla markaas asna tareenka waxa soo korayo Lee. Solana Lee ayuu ku weydiinaysaa bisadii ku dhiibay maxaa ugu soo taxdir ugu soo tagtay. Leena wuxuu leeyahay bisada adiga kula joogta maxay weydiinaysaa. Sola inuu qabsamayo u malaynaysaa eedada markay u timaado Sola inay wada rabtayna Hanjo bisad ayuu isku bedelay oo baxaya. Solana guriga aabbaheed ayay tagaysaa kadibna meesha waxay kula kulmaysaa wiilka eedada dhashay halkaas inay ku yaabaysaa. Lee ayaana go'aansanaya markaas inuu wax walba u sheego oo uu sheegayaa Sola. kadibna Sola waxay soo baxsay inay Hanjo la kulanto waxayna arkaysaa soo bisad isku bedelay binaadam naqanaayadna wayna la yaabaysaa aad ayayna ugu muruganaysaa arrintan. kadibna markuu uu gacanta saari maagno way ka boodaysaa. Leena meeshan fursad ayuu ku arkay kadibna Sola ayuu u sheeganayaa jaceylkiisa. Hanjona maadaama Sola ay aad ugu murugsantahay arrintiisa wuxuu bilaabayaa inuu Lee la noolaado. Lee ayuu gurigiisa tagayaa. Solana waxay aad ugu xiisaysaa Hanjo mar walba gadaasheeda u socon jiray. Solana markaan herkay xun ayaa qabanayo kadibna Hanjo ayaa imaanayo oo ka taxadirayo kadibna way soo kacaysaa waxay leedahay
kaliya bini'aadam xuma isku bedeshaa aniga dartay ma isugu bedeshaa. Soolaa waxay kala weydiinaysaa kormaa bini'aadan naqa jirtay. Wuxuu leeyahay kaliya markaad murugta dareento ayaa bini'aadam isku bedeli jiray aniga. Soolaa ayna ku dhahayso weli kaliya ayaan dareemayaa kadibna wuu soo dhawaanayaa. waxayna ku leedahay wax kale oo iga qarnaysa ma jiro. waxaana ku leeyahay waqtigii aad ayuu yaryahay markaana waxaa laga yaabaa inaan geeriyoodo. Soolaa iyo Hanjuna waqti fiican ay isla qaadanayaan, farxad ay isla qaybsanayaan muddo dheer. Hanjuna koof badan ayuu isku daldalayaa si uu Soolaa waqti ula qaato. waxaana intuu bisad naqan oo geeyay wuxuu doonayaa intuu bini'aadanimada isku bedelayo inuu aad waqti dheer la qaato waqti fiican Hanju. Soolaa Hanju markaa muddo dheer ayuu sugayaa Soolaa oo xafiiska aaday. Soolaa markaan Hanju ay wadaysaa asxaabteeda ayay baraysaa, laakiin asxaabteeda ma yaqaaniin waxay leeyihiin ninka ayuu yahay. waxay kala weydiinayaan wuxuu qabto iyo meesha ku shaqeeyo iyo meesha ku nool yahay, taasoo Hanju iyo Soolaaba ay jawaabteeda haynin. Hanju markaa bisad ayuu isku bedelayaa wuuna hurdayaa, kabacdi Soolaa ayaa soo qaadayso. wadada ayaa waxa uu rumaanaya ninkii bisadaha afjoogi jiray oo Hanju hortiisa bini'aadam ku naqanayay. wuxuuna isku dayaa inuu xoog Soolaa ugu qaato Hanju si uu dadka u tuso in golaal bini'aadam isku bedeli karto. kadibna xoog ayuu u adeegsayaa Soolaa wuuna ka xoogayaa bawr ayuu saarayaa. kadibna Soolaa marka yeedhiso gaariga ayay kasoo daba koraysaa, waxayna ku qasbaysaa inuu joojiyo gaariga. ninka gaariga markuu deganayaa inuu carar ayuu isku dayaa, kadibna Hanju ayaa bini'aadam isku bedelayo hortiisa soo istaagayo. ninka ayay meel saarayaan qaraacayaan, kadib markii meel saarayaan kadib ay hubala Soolaa waxay soo qaadaysaa Hanju dhakhtarkana wuxuu ku leeyahay waa inaan la nasiiyaa bisadaan. Soolaana halkan waxay xaqasanaysaa Hanju inuu waqti yar u haysto inuu bini'aadam si ahaado. shaqadii xafiiska ayaan kasoo tegaysaa si waqti dheer ula qaadato Hanju intuu bini'aadam si ahanayo. maalin maalmaha ka mid ah ayuu Hanju Soolaa u sheegayaa maalinta ay ugu dambaysa inaa bini'aadam noqdo oo hadda ka bacdi bisad ayaan isku bedeli doonaa, mar dambena bini'aadam isku bedeli ayuu ku leeyahay. Soolaa way shumanaysaa. Hanjuna wuxuu ku leeyahay haddii ay ogaan lahay inay saan noqonayso arrinta kuma soo dhawaadeen oo murugtan kuma gelsheen, laakiin inta ii dhiman noloshayda anuu basada ayaan kula joogayaa. 2 sano ayaa kasoo wareegatay. Soolaana mar walba waxay doonaysaa inuu isku bedelo bini'aadam ayay sugaysaa. Soolaana qoraa weyn ayay noqotay, dadkana waxay u maahan inay saxiix ka qaataan. liina guri ayuu ku dalbanayaa, laakiin way ka diidaysaa iyada. Hanju ayayna sugayaan leedahay, sugitaankeedana way ku guuleysanaysaa oo maalmada waxay umadanaysaa asigu guriga joogo. Soolaa oo faraxsan ayaa ku boodaysaa. sheekadada halkaa ayay ku dhammaanaysaa. haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar, haddii aad hore noola joogtana like iyo share nagu caawi saaxiib. bye bye.